kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada qaybtii 14aad ee buugga sheekafaneeda ah ee saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta 14aad ee buugguna waxa ay ku bilaabmaysaa sida tan. labadii usbuuc ayaa dhammaaday. Cawaale iyo Saafina safarkii Talyaaniga ay ku tageen ayay ka soo laabteen. waxaa Saafi wejigeeda ka muuqday nasasho iyo farxad xad dhaaf ah oo aan la malayn karin, iyo iftiin aad moodaysid qorrax arooriyo hore soo baxday. hadiyadihii kala duwanaa ee ay Talyaaniga ka keeneen ayay u qaybiyeen 4 hablood. waxay Saxarle hadiyadaas ka heshay qayb libaax. Saxarle waxa ay ahayd gabadh u dhalatay Joog iyo Jamaal. waxa ay lahayd timo aad u dheer oo labada garab wax badan hoos u dhaafay. hase ahaatee daryeel xumo iyo nafaqo darro awgood baarka ka caddaaday, xoogna isugu murgay intii ay guriga Cadar Duwane joogtay. inkasta oo ay xariifad ku ahayd hagaajinta timaha Cadar Duwane iyo hablaheeda, waqti ay kuweeda kaga shaqaysamay heli jirin. haddii ay dhacday in ay waqti yar heshana looma ogolayn in ay iyadu korkeeda ka shaqayso, waayo sharciga Cadar Duwane waxa uu ahaa inay Saxarle mar walba danteeda tan Cadar Duwane iyo reerkeeda ka horumariso. wax kale iska daaye, waxay Saxarle ka baqi jirtay in Cadar Duwane ku qabatay iyada oo timaheeda saliid marinaysa. maalin ayay Cadar Duwane ku qabatay iyada oo feedhanaysa, waana la ogaa wixii ka raacay. inta ay maqas soo qaadatay ayay timihii oo dhan xoog kaga jartay. intii Saafi iyo Cawaale Talyaaniga ku maqnaayeen ayaa waxaa si fiican timaha ugu sii hagaajisay Luul, kadibna si fiican ugu dabtay. markay dharkii Saafi u keentay ay gashatayna, waxaa lagu indho daraandaray quruxdeedii. Saafi oo daaradda fadhida oo cilaan marsanaysa ayaa u yeedhay Saxarle oo ku tidhi, kaalay Saxarla, ha lagu arko inaad dharkii ku soo baxday. Saxarle oo xarago la tiicaysa ayaa daaraddii u soo baxday. Cawaale oo jariirad Talyaani ah akhrisanaya oo kursi daaradda u yaalay ku fadhiya ayaa yidhi, maasha Allah, war qoftan aan garan waayey ma Saxarla. waxaa Saxarle gashay yididiilo nololeed, waxaanay dareentay dadnimo iyo kalsooni ay isu aragtay in aanay ahayn ruuxii aragga xumaa, caqliga yaraa ee Cadar Duwane iyo hablaheedu dusha ka hubin jireen dhaliilaha waxba kama jiraanka ah. waxa kale oo qariib ku noqotay ammaanta xaddhaafka ah ee Saafi iyo Cawaale u soo jeediyeen. Luul oo ka yaabtay sida quruxda badan ee Saxarle dharkii loo keenay ugu soo baxday, ayaa u sheegtay in ay gudaha gasho oo muraayadda isku soo eegto. Saxarle may dhaqaaqine intay xishootay ayay dhulka hoos u eegtay. Hibo oo dareentay xishoodka Saxarla ayaa intii xaggeedii u dhaqaaqday gacanta qabatay oo xagga qolka u jiiday. markii ay muraayadii sortaagtay ayay rumaysan weyday siday u qurux badnaatay. waxaa khalkhal geliyay quruxdii iyo dhaldhalaalkii korkeeda ka muuqday oo waxay u malaysay in qof kale xaggeeda dambe taagan yahay. intay isku qosashay ayay Hibo oo dhinaceeda midig taagnayd eegtay. Hibo ayaa intay gacanta taabatay weydiisay in ay jeceshahay dharkeeda cusub. intay Hibo jalleecday oo dhoola cadaysay ayay cod gaaban ku tidhi, haa. waxay ahayd markii ugu horreysay ee Saxarle ogaatay inay sidaas u qurux badan tahay. waxaa Saxarle ka soo ifbaxay astaamihii baaluqa ama qaangaadhnimada. waxaa toobkii cusbaa oo xoogaa ku dheganaa xagga hoose ka soo cadaadiyey naasa yaryar oo curdin ah. Saafi oo qolkii ka soo daba gashay ayaa Saxarle oo weli muraayadii hortaagan ku tidhi, maasha Allah, wax kale ayaad ku soo baxday. Saafi ayaa Hibo ka codsatay inay dibadda u baxdo, kadibna intay sariirtii gees kaga fadhiisatay ayay Saxarle u yeedhay. dhinaca midig ee sariirtana gacanta ugu fiiqday ayay ku tidhi, kaalay eedo halkan fadhiiso. intay Saxarle xaggii Saafi u soo dhaqaaqday ayay haddana ka shakiday inay sariirta ku fadhiisato, waayo gurigii Cadar Duwane looma ogolayn inay sariiraha ama kuraasida ku fadhiisato. iska daa fadhiisiya marka ay sariiraha goglaysa looma ogolayn in ay ku sintaaxsato. sidaas darteed markii ay aad u yarayd waxay iska dhaadhicisay in iyada wax ka sii yihiin oo aanay nadiif ahayn. markay Saafi aragtay Saxarle oo sariirta inay ku fadhiisato ka shakisan, ayaa intay gacanta ku soo dhegtay xaggii sariirta u soo jiiday oo ku tidhi, fadhiiso eedo. inta ay gacanta garabka ka saartay ayay ku tidhi, eedo, xaaladda adag ee aad ku nooshahay waxaa ii sheegay Cawaale.
waxa kale oo uu ii sheegay in uu aad iyo aad uga xun yahay dhibaatada lagugu hayo iyo sida ay u adag tahay in aanu waxba uga qaban karin maadaama ay Qadar habaryartaa tahay. waanadii iyo dhiirigelintii Saafi oo muddo saacad ku dhow qaadatay waxa ay gabagabadii u sheegtay in ay tahay fariid qiimo weyn leh, laakiin Ilaahay sidaas u qadaray xaaladeeda. Saafi intii ay Saxarla waaninaysay indhaheeda ilma ayaa ka dareereysay. waxay uga sheekaysay inay dhibaatada haysato oo kale soo martay oo iyada oo 5 jir ah hooyadeed xijaabatay, kadibna guryaha dhowr naagood oo aabaheed qabay midba mar lagu tuurayay oo ay adeegto u ahayd. waxa kale oo ay Saafi u sheegtay Saxarla in silicii iyo saxariirkii ay soo martay weli maskaxdeeda ka guuxayaan, haddana ay aaminsan tahay in dhibaatada weyn ee soo martay ay nolosha dhabta ah ee adduunka u tababartay, kuna gaadhay nolosha horumarka leh ee maanta dad badan oo nolol wanaagsan ku soo koray iyada kuma jeeranayaan. waxay ugu dambeyntiina ku adkaysay inay dhibaatada haysata kaga bixi karto xeelad, xirfad, alla aamin iyo samir dheeraad ah. igu onkoda aqalka magalo farxaniya daryeel cidna kama usho igu onkoda aqalka magalo farxaniya daryeel cidna kama usho iga awdan ban kagooyaya iga awdan ban kagooyaya. sheekaday Saafi nolosheedii hore uga sheekaysay Saxarla waxa ay ku abuurtay murugo aan la qiyaasi karin. waxay mooday in iyada lafteeda Saafi ka sheekaynayso waxa ku soo maaxday xanuunkii, dhibkii iyo dhibaatadii loogu geystay guriga Qadar Duwane. waxaa markiiba indhaheeda ka soo daatay dhibco waaweyn oo ilmo ah. Saafi oo ka xumaatay inay miskiintii yarayd ka oohisay oo ay soo xasuusisay silicii iyo dhibaatadii ay soo martay ayaa intay ilmadii ka dareereysay sacabadeeda kaga tirtay ku tidhi, alle eedaya cafi, igana raali ahow, inaan waxaad si xun u go'ato ku soo xasuusiyo ma ahayne. inkasta oo sheekada Saafi ay Saxarla xasuusisay waayihii xanuunka badnaa ee ay soo martay, haddana waxaa yididiilo weyn geliyay inaanay keli ku ahayn dhibaatada iyo silaca rajanimo ee ay dadka kale la qabaan. waxaanay aada ugu riyaaqday dhiirigelintii Saafi ee ahayd in samirku sad weyn u noqon doono oo ay mar uun dhibaatadaas ka bixi doonto. waanada guudka sakow, ujeedada ugu weyn ee Saafi rabtay inay Saxarla kala hadasho waxay ahayd markii ay aragtay in ay ka muuqdaan calaamadihii gabadhnimo ee qaangaadhka. waxay si cilmiyeysan oo xeel dheer ugu sharaxday isbeddelka dabiiciga ah ee gabdhuhu marka ay da'deeda gaadhaan ku dhaca. sidaas darteed waxay u sheegtay sidii ay ugu diyaargaroobi lahayd waqtiga isbeddelka ee kusoo fool leh. su-aalihii ay weydiisay waxaa ka mid ahaa in ay caadadii heshay iyo in kale. markii ay sheekadii dhammaysteenna waxay u keentay shandad ay ku jiraan alaabtii ay isku asturi lahayd maalinta ay xaaladaasi la soo gudboonaato. waxaa albaabkii qolka soo garaacay Cawaale, waxa uuna ku yidhi, xabiibi, adiga iyo Saxarla ma sheeka idiin socota? waxay Saafi ugu jawaabtay, soo gal xabiibi, waanu dhammaysanaye. kadibna Saxarla ayaa albaabka ka baxday iyadoo ka xishootay markii Cawaale soo galay. waxaa ka soo wareegay bil iyo dheeraad intii Cawaale gurigii Qadar Duwane ka maqnaa. muddadii uu tamashlaha iyo raaxada ku jiray Qadarna kabihii ayaa ka idlaaday. intii uu maqnaa waxay u tagtay dhammaan xigtadii, qaraabadii iyo Cawaale saaxiibadiis intii ay garanaysay, si ay uga dhaadhiciso xumaanta iyo falalka aan loo dulqaadan karin ee uu kula kacay. maadaama ay Qadar dhaqaale ahaan aada isaga ladnayd, dadka qaraabada ah ee danyarta ahna ay hoos u dhigi jirtay oo aanay jeclayn inay gurigeeda yimaadaan. xaaladan cusub ee Cawaale ka haysata ayaa waxay ku kaliftay in ay albaab walba garaacdo si ay u kasbato dad u hiiliya. waxay aada isugu dayday in qof kasta oo ay la kulantaba ka dhaadhiciso xumaanta Cawaale iyo isaga oo da'daas ah sida uu qayrul mas-uulka godadlaha ah u noqday. inkasta oo ay Qadar isku dayday in ay sumcadda Cawaale si fiican u baabiiso, haddana waxaa caqabad ku ahaa iyada oo aan hadda ka hor wanaag iyo dad la dhaqan wanaagsan hore loogu baran. Cawaalese khilaaf kasta iyada iyo isaga ha ka dhaxeeyaane waxa uu ahaa nin ixtiraam badan oo bulshada inta taqaan aada u qadariyaan. arrinta ay ku doodi jirtay ee ahayd in ninkii naag meel kula jirana
ma ahayn markii ugu horreysay ee ay ka cabato, ee waxay ahayd hadal ay meel walba la taagnaan jirtay, dadkuna ku bartay. Cawaale oo labisan iyo Saafi oo wada socda ayaa qolkoodii hurdada ka soo baxay. Isagoo wejigiisa tiiraaya ka muuqato ayaa wuxuu u yeedhay Saxarla. Kadibna inta uu Saxarla gacanta garbaha ka saaray ayuu gees ula baxay, wuxuuna u sheegay in uu gurigii Cadar dib ugu celinayo. Dhulkii ayaa naxdin darteed la wareegay, isla markiibana waxaa indhaheeda ka soo daatay ilmo aan kala go' lahayn. Inta ay dhulka hoos u eegtay ayay wejiga gacanta iska saartay si ay oohinteeda u qariso. Wax yar kadibna dhulka ayay fadhiisatay. Intay naxdintii ka soo gaadhay warka xun ee loo sheegay luga gariir ay la taagnaan kari weyday ka qaaday. Waxaa markiiba meel aan fogeyn Cawaale iyo Saxarla kaga soo xoomay Saafi, Luul, Hibe iyo Hoodo oo dareemay warka aan farxadda lahayn ee Saxarla loo sheegay. Cawaale oo qaracanka Saxarli filanwaa ku noqday ayaa inta uu dul fadhiistay isaga oo gacanta madaxa kaga haya bilaabay in uu waaniyo. Saafi, hablaheedii iyo Luul oo kulligood ilma ka socoto una adkaysan waaye oohinta iyo qaracanka Saxarla ayaa xaggeedii mar qura u soo wada dhaqaaqay. Cawaale oo weli Saxarla sasabaya ayaa Luul oo muraara dilaacsani garabka ka taabatay oo ay ku tidhi, adeer iska daa, hanala joogte. Luul oo hadalka sii wadata ayaa ku celcelisay, adeero waan ku baryayaaye ha ku celinin Cadar duwane. Isagoo ay wejigiisa ka muuqdaan murugo iyo jahwareer ayuu ugu jawaabay, adeer sidee ayaan Cadar duwane ugu tegi karaa aniga oo aan Saxarla wadin? Waxaa iyaguna hareeraha ka fadhiistay Hibe iyo Hoodo oo weli ooyaya. Hoodo oo da'da yar ahayd ayaa inta ay aad ugu dhowaatay sacabadeedii yaryaraa ilmadii dhabanada Saxarla ka socday kaga tirtirtay. Waxay ahayd xaalad adag oo qalbiyadooda qaracan iyo calool xanuun ku riday. Cawaale oo sidii ruux isku booqsan madaxiisa salaaxaya ayaa inta uu Saafi oo Saxarla dhinac fadhido oo weli ilma ka socota inta uu garabka ka taabtay ku yidhi, xabiibi alaabteeda u soo saar, waanu tegaynaaye. Inta ay Saxarla oo weli ooyeysa Saafi jaleecday ayaa Cawaale intay garhka qabatay ku tidhi, xabiibi iska daa ha kaxayne, annaga hanala joogte. Inta uu xagga gaadhigiisa u dhaqaaqay ayuu ugu jawaabay, xabiibi anigoo aan Saxarla wadin ina duwane u tegi maayee, alaabta u soo saar. Saafi oo shandad buuxdo oo ay wax walba ugu gurtay, dhar, cadar, cilaan iyo wax kasta oo gabadh da'deeda ahi u baahnayd ku jiraan laalaadinaysa ayaa Cawaale oo shirka gaadhiga fadhiya soo dhinac joogsatay. Waxay isku dayday mar kale bal in uu ka aqbalo inaanu kaxayn Saxarla ee uu iyaga uga tago. Kolkaas buu Cawaale isagoo weli madaxiisa salaaxaya murugo darteed Saafi ku yidhi, xabiibi arrintaas hore ayaynu uga wada hadalnay, shandada gaadhiga saar, inantana soo kor ku dheh. Saafi ayaa intay dib ugu noqotay Saxarla gacanta soo qabatay oo soo kicisay si ay gaadhiga u fuushiiso. Intii aanay gaadhigii gelin ayaa gabdhihii oo dhami ku soo xoomeen oo kulligood dhabanada ka dhudhunkadeen. Iyada oo aan kelmad odhan oo weli hoos eegaysa ayay kursigii dambe ee gaadhiga fadhiisatay. Cawaale oo gaadhiga istaaraya ayaa ku yidhi, adeer kursiga hore soo fadhiiso. Albaabka bannaankiisa ayay Saafi iyo labadii hablood isa soo taageen, kadibna salaan ka dabageeyeen markii uu gaadhigii dhaqaajiyey. Markii ay gurigii dib ugu soo noqdeen ayay Saafi iyo labadeedii hablood oohin ka maqleen madbaxa. Markii ay madbaxii galeenna waxay arkeen Luul oo gidaarka madaxa ku haysa oo ooyeysa. Saafi ayaa intay dhinac fadhiisatay Luul oo garbaha gacanta ka saartay weydiisay, Luul walaal maxaa kugu dhacay? Waxay cod gaaban ku tidhi, waxba. Waxaa iyaguna markiiba madbaxii kasoo dabagalay Hibe iyo Hoodo oo markay arkeen Luul oo ooyeysa iyaguna oohin isku daray. Saafi oo isku dayeysay inay xaaladda qaboojiso ayaa hablaheedii ku tidhi, orda hooyo qolkiina gala oo wax akhrista, abbaayo way soo noqonaysaaye. Mar labaad ayay Luul weydiisay waxa ay sidaas ula ooyeyso. Luul ayaa mar kale cod gaaban ku tidhi, hadda ma hadli karee, aniga ayaa caawa kaaga sheekayn doona. Saafina halkaas ayay sheekadii kaga hadhay. Saafi xaaladay Saxarla ku nooshahay wax badan kalamay socon. Inkasta oo ay dareemi kartay amaba Cawaale xoogaa uga taataabtay arxan darrada Cadar duwane,
waxa ay u qaadatay in oohinta iyo baroorta luul iyo hablaha yaryari ay asal u tahay xiisihii iyo isbarashadii ka dhalatay intay saxarle guriga joogtay. hase ahaatee markii ay luul kala qabowday ayay Saafi uga sheekaysay wixii saxarle dhibaato soo maray oo dhan laga soo bilaabo markii ay hooyadeed dhimatay. intii Cawaale iyo saxarle dhexda kusii jireen waxa uu kala hadlay dhibaatada ay ku nooshahay iyo sida uu uga xun yahay. waxa kale oo uu u sheegay in maadaama Qadar habaryarteed tahay mas-uuliyadeeduna iyada saaran tahay aanu shakhsi ahaan waxba ka qaban karin amaba aanu meel kala geyn karin. haddii uu isku dayo inuu meel kala geeyana isaga iyo Qadar isku rogmanayaan. hase ahaatee waxa uu ka ballan qaaday inuu ku dadaali doono sidii uu dulmiga lagu hayo uga yareyn lahaa. dad is-eedayo isugarsada alla iga dhasho kani iibiya iheliigu dhow alla iga dhasho kani iibiya iheliigu dhow. waxaa kale oo intii ay sii socdeen uu u sheegay in laftiisa isaga oo yar hooyadiis dhimatay oo uu soo maray dhibaato iyo dulmi badan oo markasta oo uu arko Qadar oo si xun ula dhaqmaysa ay soo xasuusiso xanuunkii badnaa ee uu ka soo maray aayadiis. waa Qadar hooyadeed oo Cotiye la odhan jiray lana noolaa wixii ka dambeeyey markay hooyadiis iyo aabihiisba dhinteen. inkastoo saxarle ka xumaatay dhibaatada Cawaale soo maray garawsatayna arrinta uu kala hadlay haddana dareenkeeda waxba kama bedelin baqdintii iyo warwarkii ay ka qabtay ku noqoshada gurigii Qadar Duwane. markii uu sheekadii iyada ku saabsanayd soo gabagabeeyey ayuu waxa uu kala hadlay arrinta isaga iyo Saafi ka dhaxaysa. waxaana uu u sheegay in uu Saafi dhowr sano ka hor guursaday kadib markii Qadar nafta isugu keentay oo uu gurigeeda ku nasan waayey. sidaas darteedna uu Saafi u guursaday si uu u helo guri uu ku nasto oo uu ku dego. markii uu sheekadii naftiisa ku saabsanayd dhameeyeyna waxa uu saxarle ka codsaday inaanay Qadar arrinta isaga iyo Saafi ku saabsan u sheegin haddii ay wax kasta ku samayso. waxa kale oo uu sheegay in muddadaas isaga iyo Saafi isqabeen uu Qadar tuhun keliyatii ku jiray balse ay ku fashilantay sidii ay igu cadayn lahayd in guurkaasi jiro. waxaanuu Cawaale isagoo arrintaas ka hadlaya saxarle ku yidhi waan ogahay adeer in ay cadaadis weyn ku saari doonto sidii aad arrintaas ugu sheegi lahayde yaa lagu soo marsiin. markasta oo khilaaf dhex maro Qadar iyo Cawaale waxa uu u tegi jiray aabaheed Xaaji Duwane oo ahaa nin aad u xaruuri ah oo Qadarna aad uga baqdo. dadka qaarkoodna waxa ay ku xaman jireen in Qadar kulaylka iyo karkarnaanta ay aabaheed ka keentay. Cawaale oo sheekadii dheerayd ee uu u waday saxarle soo afjaraya ayaa yidhi gurigii Xaaji Duwane ayaynu gaadhnay sidaas ayaa adeer inoo ballan ah. hoonkii gaadhiga ayuu garaacay si albaabka looga furo. markiiba gabadh yar oo reer Xaaji Duwane u shaqaynaysay ayaa albaabkii ka furtay. deedna Cawaale ayaa gabadhii weydiiyey adeer xaajigii ma joogaa. inta ay xaggii qolka Xaaji Duwane u dhaqaaqday ayay tidhi mar dhoweyd ayuu masaajidka ka soo laabtay bal sugan Gaasiro weydiiyo inuu hurdeeyay kale. Gaasir waa gabadh aad u daayar oo Xaaji Duwane guursaday dhowr sano ka hor kadib markii Qadar hooyadeed Cotiye geeriyootay. Gaasiro oo aad moodid in ay yara dheelalowsan tahay ayaa intay afaafka qolkeeda soo istaagtay Cawaale ku tidhi adeerkaale qolka fadhiga ku sug uu soo socdaaye. Cawaale ayaa inta uu gaadhigii ka soo degay u dhaqaaqay xaggii qolkii fadhiga. Gaasiro iyo gabadhii u shaqaynaysay ayaa waxay arkeen saxarle oo kursiga hore ee gaadhiga fadhida. Gaasiro ayaa ku tidhi saxarle soo deg. Gaasiro si fiican ayay ula socotay xaaladda saxarle ku nooshahay iyo weliba arrintii ugu dambeysay ee Qadar Duwane dhaawaca ugu geysatay. Gaasiro lafteeda iyada oo yar ayay hooyadeed xijaabatay waxayna ku kortay nolol rajanimo. sababta ay odayga 4 jeer dhali kale u guursatayna waxay ahayd in ay kaga baxdo silaca iyo nolosha adag ee ay ku noolayd. sida saxarle oo kale ayaa markii Gaasiro hooyadeed dhimatay aabaheed haweeney daayar guursaday taasoo dhibaato aad u weyn iyo hagardaamooyin badan u geysan jirtay. Xaaji Duwane oo bakooradiisii ku tukubaya ayaa qolkiisii hurdada ka soo baxay oo dhinacii qolka fadhiga u dhaqaaqay. muddo 2 saacadood ka badan markii ay qolkii ku jireen ayuu Cawaale u yeedhay saxarle si uu u tuso Xaaji Duwane dhaawaca ay Qadar u geysatay.
kadibna waxay saxarlo u sheegeen inay bannaanka u baxdo. Markii ay saacad kala doodayeen ayaa Cawaale iyo Xaaji Duwane oo wada socdaa ka soo baxeen qolkii fadhiga. Kadibna inta Cawaale xagga gaadhigiisii u dhaqaaqay ayuu saxarlo u sheegay inay gaadhiga soo fuusho. Saxarlo oo madluun ah oo cagajiidaysa ayaa kursigii dambe ee gaadhiga fadhiisatay. Gaasiro iyo gabadhii shaqaalaha ahayd ayay daaqadii gaadhiga dib uga soo jalleecday, iyada oo wejigeeda warwar iyo murugo aada u weyni ka muuqdo. Intay labadoodiiba gacanta u ruxeen ayay macasalaama ku yidhaahdeen. Xaaji Duwane oo tukumaya oo wejigiisa cadho aada u weyni ka muuqato ayaa kursigii hore ee gaadhiga ku fadhiistay. Xaajigu waxa uu khaati ka joogsaday dhexdhexaadinta Qadar iyo Cawaale. Waxaa sumcadiisii wax weyn u dhimay dhibaatada Qadar gabadha yar ee rajada ah ku hayso oo warkeedu meel walba yaalay. Jaafaajiriqa iyo kala dudistu waxay ahayd arrin u caado ah Qadar iyo Cawaale. Hase ahaatee arrintani waxay ahayd markii ugu horreysay ee Cawaale muddo intaas le guriga ka maqnaado si uu Qadar u siiyo cashar lama ilaawaan ah. Markii Xaaji Duwane iyo martidii soo booqatay baxeen, Gaasiro iyo gabadhii shaqaalaha u ahayd waxa ay ka sheekaysteen saxarlo iyo sida ay isu beddeshay muddadii yarayd ee ay Qadar Duwane ka maqnayd. Waxay rumaysan waayeen inay gabadhu sidaas u qurux badnayd. Waxay isweydiiyeen meesha rifrifkii iyo darxumadii ka muuqday kaga hadheen. Gaasiro oo iyada iyo Qadar Duwane colaad weyni ka dhaxaysay ilaa maalintii aabaheed Xaaji Duwane guursaday, waxay ku dhaaratay in haddii aanay naagtaas waalani waa Qadar Duwane lafaheeda uga baqayn iyadu saxarle ka kaxayn lahayd. Markii Cawaale gaadhigii istaadhay ayaa saxarli intay muraayada daaqada ka jalleecday Gaasiro iyo gabadhii u shaqaynaysay gacanta midig u haadisay, iyada oo macasalaama ka wada. Gaasiro oo ka naxsan dhibaatada tan yar ka horreysa oo ilma indhaheeda kasoo dareertay ayaa intay fooda dacalkeeda iska marisay gacanta u haadisay. Intii ay dhexda kusii jireen Xaaji Duwane, Cawaale iyo saxarla midna kelmad ma odhan. Qof kastaaba dhinaciisa ayuu feker ugu maqnaa. Aamusnaanta kasakow wax dhaqdhaqaaq ah oo ay sameeyeen ma jirin. Waxaad moodaysay in kursiga lagu xidhxidhay. Saxarlo oo keliya ayuunbaa dhowr jeer shandadii saafi soo siisay intay furtay alaabtii xabad xabad u soo bixisay oo tirisay, haddana dib ugu celisay. Waxay aada uga warwar qabtay in alaabta hadiyadaha ah ee la soo siiyey ay Qadar Duwane ka qaado oo caruurteeda siiso. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii 14aad ee buugga sheeko-faneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta xigta inta aynu isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano alle.